isagoo marka sii socdo dhinacii magaalada u sii socdo walaalkiina kaga soo takhalusay in adeerkii oo soo dilay unbuu gaadhi kaloo weyn oo xamuula oo isaguna seedkiisa iska socdo dan waxba arkaynin inba isagii isku dhaceen say isugu dhaceen marka waa la kormaray gabigiisiiba isagii gaadhigiisii yaraa uu watayba tagsigii maxamuud waaye tagsiga uu wato korkaa lagaga masaxayo waa la dardarayo waa u jajabay iyo ninkii gaadhiga weyn waday soo degay wuxuu isiri bal fiiri gaadhiga yar qofkii waday inuu nool yahay inuu dhaawac yahay aad caawiside meel buu arkay marka isagoo ku jira gaadhiga hoostiisii oo uuna kasoo bixin karayn wuxuu ku qaylinayaa markuu meeshan ku dhex jiro gabadhayda yartaa agoon ha ka dhigin waan ku baryayaa gabadhayda yartaa agoon ha ka dhigin waan ku baryayaa gabadhayda yartaa agoon ha ka dhigin buu ku qaylinay suu hadalkii uu ugu qaylinay khalaas wuu dhintay dadkoodii baa yimid marka eheladoodii ninkii ahaa maxamuud iyo dawaaba isku ehel waa ilma adeer labaad iyo xaamud ehelkoodii baa yimid ninkii darawalka marka wuxuu leeyahay waan idin baryayaa iska kay cafiya ninkan maanta dhan wuxuu igu lahaa gabadhayda yartaa agoon ha ka dhigin oo uu i baryay markaasaa la yidhi gabadh yarba muu dhalin kani kaas kale la dilay ee meydkiisa meesha wadada agteeda lagu tuuray ee mindida lagu dilay ninkaasaa gabadh dhalay maxamuud ah laakiin kan shilka galay wax gabadhou dhalay ma jirto gabadhna muu dhalin maxaa loo maleeyay marka gabadhayda yartaa agoon ha ka dhigin muxuu u lahaa wiilka maxamuud markuu dilayay markaas maxamuud waxa laga yaabaa baa la yiri uu ku calaacalayay markuu isaga baryay gabadhayda yartaa agoon ha ka dhigin waan ku baryayaa gabadhayda yartaa agoon ha ka dhigin marka waa hadalkii ugu dambeeyay ee dhagihiisu ay maqlayaan ninkii buu soo dilay Soomaha gaadhigiina uu ka tuuray isagoo hadalkaas bas dhagihiisa ay ku soo noqonayaan gabadhayda agoon ha ka dhigin isagana uu ba dhintay hadda 5 daqiiqo bas